soo dhawaada saaxiibayaal sheekadu waxay ku bilaabanaysaa iyadoo la tusaayo gabar ku dhaawacantay jasiirad aan la aqoon. dhinaca kale waxaan aragnaa Madison oo ah qofka ugu muhiimsan sheekadeena, waana xiddig ka tirsan baraha bulshada vlogger ah. maanta waxay si joogto u dhigtaa muuqaalo ay booqanayso meelo kala duwan. hadda waxay timid Thailand iyadoo ka jawaabaysa dalka taageerayaasheeda. ma jiro qof kale oo safarkan qorsheeyay marka laga raabay saaxiibkeed Johan, sababtoo ah labadooda waxay doonayeen inay waqti wada qaataan, laakiin sabab la xiriira shaqo Johan uu soo daahi doonaa maanta. taasi waa sababta ay Madison kaligeed u dalxiisayso. waxay booqatay meelo badan waxayna qaaday sawiro. waxay ku sugnay hotel ku yaala Thailand. subaxii xigtay waxay duugaysay muuqaalo xayisiina, laakiin waxay saameeyeen shaqada sababtoo ah kali ahaanshaha. waxay si joogto u diraysay fariimo Johan iyadoo ku oranaysa waa inay si degdeg ah ugu maadaa. Johan wuxuu sheegay inuu dadaalayo. 2 maalmood kadib iyadoo Madison ku sugan baar ayaa nin doq u yimid kana dalbaday inay la aado gurigiisa lacag darteed. arrintaas waxay Madison ka dhigtay mid si aad u xumaata. waxay ku tiri iskaga tag meesha, laakiin ninkii uu ku adkaystay. markaas ayaa sheekadeena soo gashay qofka ugu muhiimsan, waana CW. waxay ku nooshahay halkaas waxayna si fiican u taqaantaa deegaanka. CW waxay ceebaysay ninkii duq ahaa waxayna ka eryday meesha. Madison waxay ku farxay arrintaas, sidaas ayay labadood u bilaabeen wada sheekaysi. CW waxay sheegtay in dad badan oo sidaas ay ku nool yihiin meeshaan, sidaas darteed ayna tahay inaad taxadar muujiso. Madison waxay u sheegtay Johan inuu baajiyay qorshaheedii daqiiqada ugu dambeeyay, taasi darteed waa inay kaligeed safartaa. dadka waxa ay moodeen in nolosheeda falagurnimada ay u fiican tahay, laakiin shaqada dhab ahaantii aad bay u adag tahay. kaliya taageerayaasheeda ayaana garanaya. waxaana sidoo kale ogaan in CW ay tahay hagaag dalxiiska, waxayna dadka u kaxaysaa meelo kala duwan oo dalxiis ah. laakiin CW iyo Madison waxay noqdeen saaxiibo. ma jeclaan lahayd inay la safarto? waxaan ku hayaa meelo badan aan weli gaarin. Madison way ogolaatay. markaas si wadajir ay ugu safreen baaskiilka CW. halkaas ayay ku duubtay vlogyo qurux badan. markaasay galeen club waxayna cunayeen cunto. kadib safar maalmeed waxay ku soo noqotay hotelkeedii. maanta Madison aad bay u farxday sabab la xiriirta in muuqaaladeeda ay daawanayeen dad wanaagsan, laakiin farxaddu waxay isku bedeshay murugo markay tagtay qolkeeda. waxay aragtay in albaabka qolkeeda uu furan, dhammaan alaabteedii waa la xaday oo ay ku jirto baasaboorkeedii iyo lacag badan. markaas si weyn ay u murugootay waxayna u sheegtay CW arrintaas. CW waxay ka diiwaangelisay cabasho waxayna siisay form. markay buuxisay formkaas baasaboorkeeda cusub ayaa heli doontaa, laakiin waxay qaadan doontaa 2 toddobaad. iyadana ma joogi karto intaasoo maalmood sababta waxay u baahneed inay fiidyo u duubto shirkad ku taala Mareykanka, laakiin xal kale ma aysan hayn. habeenkii waxay u sheegtay Johan, laakiin Johan wuxuu aad ugu walwalay lacagtii luntay halkii uu ka walwali lahaa Madison. taasi darteed Madison waxay bilowday inay eeso Johan, xitaa marna ma uusan wareysan xaaladeeda. waxa kaliya uu ku fikirayay ayaa ah lacagta. taas darteed way cadhootay. hadda waa inay halkan ku sugto dhowr maalmood. wax ay tahay mid aan waxba ka qaban karin, sidaas darteed waxay la safartaa CW ilaa baasaboorkeeda ka soo noqdo. intii lagu guda jiray waxay gelisaa sawiro iyo muuqaalo badan janaalkeeda. kuwa badan ayaa si fiican loo daawaday. waxay sidoo kale ku tiraa CW sawir ay la gal, laakiin markasta way diidaa. taas ayaa Madison ka dhigtay mid la yaabta, waxaana maskaxdeeda ka guuxayay maxay sawirka u fogaataa. waxaa laga yaabaa inay diido sabab la xiriirta calaamada wajigeeda ku yaalay. markaas ayaa arrintaas iskii la wadaa Madison si ay sawiro u hesho. maalintii dambe CW waxay u kaxaysaa gurigeeda. gurigan wuxuu ku yaalay xeebta, wuxuuna ahaa mid aad u qurux badan. halkaas CW waxay ku tiri bir waxaan aadi doonaa jasiirad yar oo wax yar ka fog meesha, waana meel aad u qurux badan, dad yar ayaa taga. Madison waxay is leedahay waxaa laga yaabaa inay cidna tagin weli. taasi waxay ka dhigan tahay inay heli doonto views badan. kaas ayay ogolaatay iyadoon ka fikirin. ka hor inta ay qoraxda soo bixin CW waxay soo saartay doontii. labadooda waxay u safareen jasiiradda. inta lagu guda jiray Madison waxay duubaysay vlog, laakiin ma aysan ogeyn in go'aanka noqon doono mid ka mid ah go'aamadii ugu xumaa ee nolosheeda. ilaa hadda wax walba way fiicnaayeen, laakiin hadda sheekada way rogman doontaa. saacado safarka ah kadib waxay gaareen jasiirad. halkaas waxay ku arkeen alwaax oo ku xirnaayeen 7 xariiq ah. sida caadiga tani waxaa sameeyay qof maalmaha tirinayay. yaa garanaya, waxaa laga yaabaa inuu qof halkan ku nool yahay ama qof halkan lagu haysto. si kastaba cidna weli ma imaan, sidaas darteed jasiiradda waxay u muuqataa mid aad u qurux badan. habeenkii waxa ay shiteen dab waxayna fariisteen hortiisa. waxay bilaabeen inay ka sheekaystaan noloshooda, laakiin subaxii xigtay CW waxay muujisaa wajigeeda dhabta ah. ka hor inta aysan Madison aysan toosin CW baxday, laakiin sheekada Madison halkaas kuma dhammaanaysa. dhab ahaantii CW waxay bilaabaysaa in nolosha Madison ay la noolaato. waxay ku noqotaa gurigeedii waxayna jabsataa dhammaan akoonada Madison, waxayna dhammaan sawiradeeda ku bedeshaa sawiradeeda. waxay xirataa dharka Madison meel kastaba. waxay duubtaa vlogs waxayna la sawirtaa dadweynaha. CW hadda waxay ku noolayd nolosha Madison. waxay si joogto u dhigtay wax ku jira akoonkeedii iyadoo aan la ogeyn.
hadda Johan aad buu u luulasnaa sababta Madison ma aysan soo wicin tan iyo markii iskhilaafeen waana wax aan hore u dhicin muxuu ka ogaadaa in telefonkiisii hadda gacanta u kashay CW idan waxay iska indhi tirtaa dhammaan fariimahaas waxaana suurtagal ah in Madison hadda ay dhimatay sidaas darteed CW waxay bilaabaysaa inay raadiso dhibana kale waxay hore sidaan ugu sameysay 4 gabdhood markaas ay raadinaysaa qof cusub kadibna si fudud ay ku heshaa gabadha ay qabatay markaan waxa ay ahayd garyaqaanidaas ayaa kaligeed timid Thailand CW waxay ogaatay sheekadeeda iyo hotelka ay degan tahay markaas ay CW ka kireysatay qol isla hotelka waxayna bilaabaysaa inay si qarsoodi ah u la socoto kadibna wax ay si tartiib ah u dhaxkashaa nolosheeda waxayna xadaa furyaal kamid ah boorsadeeda kadibna waxay sameeysaa wax la mid ah wuxuu ku sameysay Madison sidii gabadhii garyaqaanada iidan ugu dhigtay mid aan waxba qaban karin maalintii ayay waqti wada qaadanayeen CW waxay u kaxaysaa guriga wuxuu ahaa gurigii Madison laakiin CW waxay u sheegtay inuu yahay gurigeeda halkaas ay CW ku wajahday Johan sababtoo isaga wuxuu haystaa furaha guriga hadda Johan wuxuu u yimaaday inuu si lama filaan ugu farxiyo Madison CW waxay u sheegtay in Madison ay tiri waa kala tagnay Johan wuxuu ku jawaabay inay kaliya xanaaqaday waxa sidoo kale ma dhici karaan maalintii xigtay Johan wuxuu wacay telefonkii Madison waxayna CW qabatay wicitaanka iyadoo adeegsanaysa codka Madison taas oo ay ku sameysay caawinaad dhammaan qoraalkii waxay u bedeshay codkii Madison markaas ayaa Johan looga sheegay in wax walba ay dhamaadeen in guriga ay ka tagtay laakiin Johan ma tagin sababtoo ah wuxuu hubay in Madison ay soo laaban doonto dhowr maalmood gudahood markuu Johan la hadlay garyaqaanada gabadhii ee cusbeed waxay garatay in waxyaabaha aydan ku dhaceen waxay la hadashay Johan waxayna ku tiri waxba ka khaldan CW iyadoo wax ay ahayd garyaqaan marar badan ayay la kulantay kiis noocan ah sidaas darteed waxay bilowday inay dheeso CW maana ay jirtaa fariin ay dhigi Madison ogeysiiskii fariintaas wuxuu ku soo dhacay telefonkii CW markaas ay hubtay in CW waxaan ku sameysay Madison markaas ay guriga ka baxda alaabteedii xirata oo go'aansataa in isla markiiba tagto laakiin CW ka soo muuqata markay aragto garyaqaanadii waxay iska dhitaa wax aan waxba dhicin markaas ay ku tiraahdaa Johan ayaa ii sheegay wax walba in waxyaabaha ay helay adigna aad ku sameysay Madison aniga ma yihi gabar caadi ah waa ku runta inaad igu ciyaar laakiin aabahay uu ku heli doona uu ku dili doona laakiin CW ma aysan ogolaan inay si sahlan u baxsato markaas kabtii cirbada lahayd qoorta kaga dhufatay waxay noqotay gabadhii shanaad ee disho CW kadib codkii ayuu Johan maqlay wuu yimid laakiin intuusan imaan CW waxay masaxday dhamaan cadeemihii markaas Johan waxba ma oga laakiin markuu Johan tago CW waxay ka soo qolkiisa si ay si wax ugu qabatay intii ku jirtay telefonkeedii ayaa soo dhacaya waayo Johan hadda wuxuu dhijiyay sawiro iyo garyaqaanka isigoo Madison ku daray taasina waxay ku noqotay dhibaato weyn CW ma rabto in qof arko wajigeeda sidaas darteed waxay ku fikirtaa in marka hore ay tirtirto sawiradaas kaasoo Johan gacantiisa ku jira subax xigtay CW waxay u sheegtay Johan in garyaqaanadii ay ka tagtay gurigeeda xilligaas Madison waxay soo dhigtaa sawiro ay la jirto wiil laakiin dhabaantii sawirkaas waxaa soo dhijiyay CW laakiin Johan arintaas ma ogeyn sidaas darteed uu murugooday wuxuu u maleynayay in Madison dhabaantii ay doonayeen inay la joogto halkaas ay CW ka ogaatay in Johan uu niyad jabay sidaas darteed wax ay siisay rajo been ah markaas ay indhiisa qabteen qaar ka mid ah sawirada Madison kuwaas oo falxum xitaa tiradii dadkii raacay wax ay bilaabeen inay hoos u dhacdo habeenkaas CW waxay ku xeysay baar halkaas waxay ku dartay cabitaankiisa wax kaasoo ku soobay inaysan garin wax dhacay fursadaas ayay ka faa'iideysatay oo waxay geysay gurigeeda waxayna ka tirtirtaa sawiradii telefonkiisa subax xigtay markuu soo toosay Johan wuxuu isku qanciyaa inuu sii joogin sidaas darteed wuxuu go'aansaday inuu baxo taasi micnaheedu CW wada ayaa u furantay maalintii wax ay gubtay dhammaan alaabtii Madison xitaa baasaboorkeedii Johan wuxuu dareemayay murugo ku saabsan xiriirkii uu lahaa Madison waxay ahayd gabar caadi ah labadooda waxay si adag u shaqeeyaan waana markaas ay timid meeshan laakiin markaas ayaa wax ku soo dhacay maskaxda Johan sawirkii uu saddexdii arkayay Madison wiilka waxa gadaal kaga muuqday hotel wuxuuna u maleynay in Madison halkaas degtay markaas ayuu u laabtay hotelkii halkaas ayuu ku ogaaday in Madison weligeed uusan imaan halkan isla markaas waxaan aragnaa odaygii hore u dhibay Madison wuxuu ogaa sawirkii Madison oo Johan ka dhigtay welbar waxaana maskaxdiisa ku soo dhacay uu kala kulmay wax kadib Johan iyo odaygii waxay bilaabeen hadal Johan wuxuu ogaaday in sawiradii Madison ugu dambeeyay ay ahaayeen been abuur odaygii wuxuu u sheegay maalintaas markuu arkay Madison oo ay markaas la baxday CW markaas kadib Johan wuxuu bilaabayaa baaritaankiisa markuu ku saaray filterkii wajiga Madison ee fiidiyowga wuxuu ogaaday in qofka gadaasha ka taagan uu yahay CW markaas kadib wuxuu si toos ah u tagay guriga CW wuxuuna bilaabay inuu sugo CW markay timaado Johan ayaa gadaal ka weeraray waana suuxinayaa wuxuu ku xiriyaa kursi markii ay soo naaxday wuxuu marka hore weydiinayaa Madison laakiin waxba uma sheekaysa kadib wuxuu bilaabayaa inuu hanjabo boolis laakiin CW ayaa u hanjamtay oo tiri booliska adiga ayaa ku qaban doonaan waayo Madison ayaa u dirtay fariintii ugu dambeysay laakiin Johan wuxuu geeyay
doontii wuxuuna ku yiri igey meesha ay Madison ku sugan tahay. CW way ogolaatay oo qorshe ay ka wadatay. Markii ay badda dhex tageen wax ay riixeen Johan waxayna ku tuurtay biyaha. Halkaas ay ku xoojisay oo si naxariis leh u dishay. Taasi waxay muujinaysaa in gabadha ay tahay dilaaga taxanaheena. Kadibna gurigeedii ay tagtay waxayna soo dhigtaa akoonkii Madison. Saaxiibkii Johan uu garaacay lacagtii uu baxsaday si ay dadku u maleeyaan in Johan uu baxsaday ee aan u dhimin. Kadibna waxay xirtaa faraantii uu Johan u keenayay Madison. Maalintii xigta waxay aragtay in raacayaashii Madison ay taageerayaan. Laakiin sheekadu halkaas kuma dhamaan hool ayaa u dhimin wali. Dhowr maalmood kadib waxay tagtaa jasiiradda si ay u masaxdo dhammaan cadeemaha. Laakiin halkaas waxaa aragnaa dab shidan korna kulan lagu karinayo. Waxaa laga yaabaa in Madison ay wali nooshahay. Anigoo yaaban ka badan CW ayaa la yaabtay. Markaas ay uga sheekeentay si ay u raadiso Madison. Kadibna si lama filaana Madison ayaa gadaal ka soo baxda oo madaxeedii si xoog leh ugu dhufatay wax dib u dhicin la'aanta Madison wax ay tagtay doontii. Halkaas ayay ku artay meedkii Johan. Markii ay artay meedkii Johan aad bay u murgootay. Laakiin waa inay badbaadiso nafteedii sida darteed waxa ka tagtay halkaas. Laakiin waxaa aragnaa in Madison aysan wali dhimin. Ma aysan baqin kaliya waa ay khoshay. Taasoo muujinaysa in CW ogtay jidka loo maro meeshan. CW waxay ogaatay in Madison ay ahayn qof doqon ah. Waxaa laga yaabaa inay ogaato jidka looga baxo meeshan. Su'aashaas iyadoo taagan sheekadan halkaas ay ku dhamaanaysaa.